saddexaad ee arrimaha taagan oo kala baxaya laba farqadood oo kala runtii markaan hoos u dhaadhaco xogogaal u noqoshada xaaladda xanuunka coronavirus-ka iyo dhibaatada uu u keenay bulshada guud ahaan runtii xanuunkaasi caalamka oo dhan buu hortii xanuunkaasi ku dhacay oo gaadhay oo xanuun aad u ballaaran meelaha qaarkoodna aad baa loogu hortay adduunka laakiin innagu alxamdulilaahi rabbilcaalamiin iminka wakhtigan xaadirkeenu joogno waa sahlan yahay wax dhibaato oo saa u sii weyno xanuunkaa lagu sheegi karaana ma muuqato laakiin waxaan soo jeedin lahaa bal halka xaaladiisu ay maraysa iyo marxaladiisu marba halkay taagantay si aynu ogaano in guddidii coronavirus-ka aynu u yeedhno oo si ay warbixin nooga siiyaan ta labaad waxa weeyaan iskuulladii iyo meelihii loo xanibay iyaguna way shaqeeyaan oo de wax xanibaad oo saaran ma jirto hadda marka kolley waxay u baahan tahay uun saamaynta uu inagu yeeshay ee bulshada iyo siiba kuwiina danyartaa ku yeeshay in wixii laga qaban karo hadday ganacsado noqoto iyo hadday xukuumadda noqotoba in hoos loo eego oo wixii laga qaban karo laga qabto dadka danyarta ilaa iyo maxaanku idhahdaaye qof dumarkiis masalan carruurta madrasada horteeda ama iskuulka hortiisa wax ku iibinayay ayuu saamayn ku yeeshay dadka danyarta marka waxaan leeyahay wixii laga qaban karo xukuumad iyo ganacsato iyo hay-adda uu xildhibaanka hore carabka ku dhuftay hay-adda sakada wixii laga qaban karo mushkiladda uu inoo keenay xanuunkaasi waa loo gurmado ha laga qabto taa intaasaan ku dhaafayaa waxaa kaloo jirta xaaladda taagan markaan aan eegno dee doorashaynu soo gallay 11 May doorashadaasi mid Soomaaliland hore soo martay may ahayn si wanaagsan bay inoogu dhacday waa laba doorasho saaran bay ahaayeen waa wax ilaahay loogu mahadiyo caalamka oo dhanna waa inagu hambaliyeeyey dowladaha dhow ee Afrika iyo kuwa Yurubta iyo galbeedkuba innaga laftigeennuna waxaynu u baahan nahay in aynu baaq ka soo saarno aynu ku maarta ka guurti ahaan waan soo jeedinayaa ciddii ka howlgashay oo commissionku koow ka yahay xukuumaddu ku xigto cid kasta oo ka gacan geysatay doorashadaas sida absanada laynoogu hambaliyeynaa innaguna qaybteenna aynu maaragtay ka guurti ahaan baaq ka soo saarno aynu ku hambalyeynayno doorashada qaabka inoogu dhacday waa xaaladaha taagan baan u malaynayaa u baahan in wax laga yidhaahdo inta haddii aan kaga gudbo farqadda labaad oo iyaduna sheegaysa ka howlgalka xaaladda nabadgelyo ee shidan iyo dhabar dalool farqadaasi waa nabadgelyadii bay ka hadlaysaa nabadgelyadana waa waxaa keliya inu haysanno haddaan markaa dhibaatada meesha ka dhacda ama khilaafka ka yimaada beelaha dhexdooda aan marka la gudagalo la dhammaystirin mushkiladahoodu marka dambe ay nagu sii ballaadhanayaan marka waxaan soo jeedinayaa nin kasta oo in badan lagu howlanaa dhabar oo aynu warbixinta ku hayno sidaynu ognahay haddana inay weli wax taagan yihiin baad moodaa waxaan u soo jeedinayaa xukuumaddu sida ay maaragtay marka horeba uga howlgelaysay in la sii xoojiyo wixii laga qaban karo halkaasi ay arrintaasi inooga fadhiisato oo ay inooga danto inoogu soo noqnoqotay dhawaawiya taagantay weli in sida ugu xooga badan wax looga qabto innagana ka guurti ahaan roolka iyo doorka aynu ku leenahay dee nabadgelyadii weeyaane nabadgelyadii inaynu wax ka qabanno oo aynu maaragtay u dhaqaaqno waynu fadhiga ka kacnaa loo baahan yahay arrintaa laftigeeduna sida ugu habboon in loo gudagalo oo lagu soo afjaraabaan soo jeedinaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu